maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ku riday saddexdan eedeysane oo kala ah xidigle xooga nuur aadan rashiid nuur madoobe saddex xeregle maxamed maxamuud buule debla bool salaad xareed cali eedeysanaha koowaad xidigle xooga nuur aadan rashiid nuur madoobe ayaa xafiiska xeer ilaalinta waxa uu ku soo eedeeyay afduub kufsi iyo dil oo u geystay allaha u naxariistay ismahaan bakaal maxamed halka eedeysanaha labaad uu ku soo eedeeyay xafiiska xeer ilaalinta inuu gacan ku siiyay dilka allaha u naxariistay marxuumadda kadib markii uu u dhiibay eedeysanaha koowaad qorigiisa laguna dilay allaha u naxariistay marxuumad ismahaan bakaal maxamed dacwadda saddexdan eedeysane oo wajiyo badan soo martay ayaa waxaa xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle maxamed amiin cabdulle aadan dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ee ku xusneed aayadda 178aad suuratu al-baqara qodobka 104 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobada 434 398 460 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraaladii eedeysanaha koowaad iyo eedeysanaha labaad ay ka hor qirteen garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay dhageysatay baarihii dacwada iyo afar marqaati oo xafiiska xeer ilaalinta hor keenay maxkamadda horteeda midna u dhuuxday marag furkooda markay aragtay sawirka marxuumadda iyo xaashida dhakhtarka ee cadeynta dhimashada marxuumadda iyo xaashida dhakhtarka ee cadeynaysa kufsiga marxuumadda markay aragtay dambi muujinta falka lagu geystay oo ah qori AK47 ah nabarkiisuna yahay 1-eber-eber-3-3 oo ay ku jirto 27 baalood markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xeer ilaaliyaha iyo qareenkii difaacayay eedeysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha kala ah kow xidigle xooga nuur aadan rashiid cali nuur madoobe 2 maxamed maxamuud buule ciidankan ugu meeleysan 3 xeregle 19183 subeer cartan faarax buule ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo kala eedeeyay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dambiile xidigle xooga nuur aadan rashiid cali nuur madoobe dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad ismahaan bakaal maxamed waxayna maxkamaddu ku xayuubisay darajadii uu sitay waxayna ka saartay fursadda liiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 2 dambiile maxamed maxamuud buule ciidankan ugu meeleysan 3 xeregle xooga 19183 subeer cartan faarax buule waxay maxkamaddu ku xukuntay 5 sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga si degdeg ah looga sii deeyo dable booliis 26342 salaad xareed cali salaad afweyne maadaama maxkamadda ay u cadaan waysay dambi lagu soo eedeeyay haddaan loo haysan eed kale cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxa u furan raacfaan